الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبية قرنكا وهوينت الصحافة سوماليلاند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa shir isugu yimi saddexda xisbi qaran, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka. waxaa ka horeeyay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha iyo komishanka doorashooyinka. sida la og yahay waxaynu ku jirnay oo imika inoo soo afjarantay diiwaangelintii codbixiyayaasha oo komishanka doorashooyinku uu hagaayay, xukuumadduna ka qayb gashay, axsaabta qarankuna ay ka qayb galeen. waxaa inoo harsanaa markaa xilligii la mudaynayay doorashadii labada gole, golaha deegaanka iyo golaha wakiilada. sida aynu ka wada warhayno ee uu qeexayo xeerka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa doorashada xeerkeeda iyo muddaynteeda hadday diiwaangelinta tahay hadday doorashada tahayba hagaaya komishanka doorashooyinka. komishanka doorashooyinku waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii, iyagu waxay xaqa u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada. waxay ku soo muddeeyeen bisha May 31 inay dhacdo doorashadii labada gole. xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha hadday arrintaa laga tashaday, waxay xisbiyada qaranku isla raaceen oo isla waafaqeen inay taageeraan si midaysan, inay u taageeraan doorashada tala soo jeedinta ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinku. waxaa kale oo ay soo jeedinayaan ayagoo midaysan, si qaran ahaan aynu midaysanno, dib u dhac dambana aanu inagu dhicin, bacdamaa ay guurtigu muddadeeda hore u kordhisay in iyaga xisbiyada iyo xukuumadduba ay si wada jir ah macal guurtiga ay ka wada howlgalaan si laysu waafajiyo muddadii hore guurtidu ay magacowday tilmaantay iyo muddada imika ay komishanku soo jeediyeen, si ay doorashadeennu ugu dhacdo arrin aynu ka wada midaysannahay xisbiyada qaranka iyo xukuumadda iyo komishanka doorashooyinka. intaasaanu maanta isku waafaqnay. xisbiyaduna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. bismillaahi raxmaani raxiim. sidaa uu wasiirku sheegay, martiqaad baanu ka helnay madaxweynaha si aanu arrintaa uga arrinsanno oo isuga gelinno. waa ogeydeenoo komishanku isagoo raacaya tilmaamihii xeerka doorashadu tilmaamay, maalintii bay cayimeen doorashada diyaarka waa inay ku qabtaan oo 31 May ah. waxa kaloo jirta taariikh kaloo guurtidu qabatay oo ay golayaasha waqtiga u kordhisay oo ay November ilaa golahu inuu sii shaqeeyo ay cayimeen. marka maanta waxaan isugu nimi sidii labada taariikhood la isu waafajin lahaa. maanta dadku doorasho diyaar u yahay. hawl weyn ayuu ilaahay si fudud inoogu qabsoontay oo meelaha aan la filaynin in diiwaangelintu gaadho ayaa dadku si niyad wanaaga oo uga shaqeeyeen, uga diiwaangashadeen. marka waxaa taagan maanta mawjad baa taagan dadku doorasho doonayo. marka waxaanu goosannay annagoo saddexdii xisbiya inaanu horta si rasmi u taageerno oo ayidno maalinta ay guurtidu qabatay komishanku qabtay 31 May aanu bogaadino hawsha. waxa kaloo nu go'aansannay inaanu guurtidana ka codsanno iyagoo eegaya xamaasadda maanta jirta iyo caalamkii isha inagu haya. waxaanu go'aansannay guurtida inaynu ka dalbanno oo aanu ka codsanno inay iswaafajiyaan maalinta ay cayimeen iyo maalinta komishanku qabtay, oo iyaguna ay nala qaataan oo ay ka howlgalaan. sidaasaanu iyagana ka rajaynaynaa, maadaama maanta dadku aanu diyaar u ahayn doorashadu inay dib inooga dhacdo mar kale. meel wanaagsan la soo gaarsiiyey cid aliyaal cid ka shaqeysay hadday komishanka tahay, hadday xukuumadda tahay,
haddii axsaabta qaranka tahay hadday odayaasha dhaqanka tahay cid alle cid gacan ka geysatay diiwaangelintaana aad iyo aad baan u bogaadinaynaa guurtidana waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay idankii iyadoo shirgudoonadii joogaan annaga iyo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaanu kala shaqeyno sidii la isu waafajin lahaa labada taariikhood wassalaamu calaykum ilaahay baa marka hore mahad leh ilaah maanta isku keenana bahad leh waxa runtii iyadoo sidoo kale waxa runtii farxad leh in maanta halkii saddexdii xisbi iyo madaxweynihii halkan ay ku kulmeen sidoo kalena komishiga doorashooyinka qaranka ay maalintii shalay ahayd ay caymeen maalinta doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u qoondeeyeen inay qabsanto 31 May marka sida odayaasha igu horeeyay bay sheegeen shirkan saakaran ka dhacay dood dheer iyo waxaan la fagurnay sidii aynu 31 May hadii la yiraahdo inakoo gacmaha haysanna shacbi iyo xisbi iyo commission ba aynu runtii doorashadaas inagu qabsoomi lahayd waxa kale ognahay dalkan saddexdii sano ugu dambeysay labadii sano barkii ugu dambeysay khilaafka inaga taagnaa doorashada oo xanaf badan iyo runtii murug badan runtii ka taagneed oo u dhaxaysay xisbiyada halkan maanta aynu soo gaadhnayna waa meeshii ugu dambeysay ee runtii muxuu ahaayay ay maanta ku suurtageli lahayd in doorashadaas qabsanto marka inakoo iyadoo dhinac badan laga eegay iyadoo laga eegay maanta xaaladda dalku ku jiro iyadoo laga eegay xaaladda gees ku jirto inay maanta Soomaaliland iyadoo isku tashato oo doorashadii laba doorasho isku sidkan hadii la yiraahdo ay qabsoon ay muxuu ahaayay ay inoo qorsheysan tahay in koosada kamay dhacdo runtii waa wax guul weyn oo shacabka reer Soomaaliland runtii maanta wax lagu farxaa marka anaku xisbi ahaan komishinka waa bogaadeenina hawsha qaran ka soo baxeen iyo shaqadoodii ay ogman in maalinta deedka cayimaan iyaguna ku bogaadeenina shacabka reer Soomaaliland waa bogaadeenina sida fiicneed ay diiwaangelinta uga qayb qaateen xisbiyada laftigooda wada shaqayn guud iyo runtii khilaafka oo meesha ka baxay oo wada jirka iyagoo ku shaqeynay iyaguna runtii iyaguna way ku mahadsan yihiin maanta waxa noo taala un stage-ka ugu dambeysay sidii aan uga bixi lahayn oo ah in la iswaafajiyo 31 May ee commission-ku u caymay iyo madaxweynaha golaha wakiilada oo kaliya ay u sameeyeen guurtidu wuxuu hayay ay u sameeyeen in 18 November wuxuu hayay xilkoodu yahay marka runtii waa last stage-kii waa runtii maanta shacbiguna waa u diyaar qarankuna waa u diyaar halkana waxaan ambiin uga direynaa golaha guurtida iyadoo ay eegayaan duruufta maanta dalku sugan yahay iyagoo eegayaan magaranaysa xaaladda guud ee Soomaaliland maanta sida ugu aloosan tahay shacbi iyo dawlad iyo xisbiyada inay doorashadaas qabsanto inay markaa iyaguna runtii deedkaas oo kaliya ay iswaafajiyaan marka shirki jiraadna wuxuu taarnaa inaan commission bogaadino guurtidana muxuu ahaa ambiilka u dirno insha Allah iyagana waxa ka rajaynaa inay shacbiga u hiiliyaan oo maanta doorashadaas muddo dhaaftay khilaafkii soo taagnaa runtii iyaguna ay tixgeliyaan waxaan qabaa taariikhda oo markii labaad axsaabta Soomaaliland inta jirto sidan oo kale maca commission-ku inay dates la qaataan doorasho ay muxuu ahaa ku wada midaysan yihiin wadaagooda 2008 markii khilaaf xisbiyada jireen waati 6-point agreement ay muxuu ahaa international community waaga ay nagu dhexdhexaadiyeen markaa la isla wada waafaqay maantana xisbiyadii oo aan muran ka dhex taagneen oo mid ah shacabkii oo mid ah muxuu ahaayay musharaxiintii u tartamaysa golayaasha oo iyaguna runtii iyaguna diyaar ah iyo ummadii oo mid ah ayaa runtii maanta iyaduna meesha taagan oo runtii ismooqif wada midaysan wada qaatay marka guurtidana runtii iyagana waxaan rajaynaynaa iyaguna in sidaas oo kale iyaguna ay mowqifka xisbiyada iyaguna ay qaataan iyo commission-ku ay keeneen oo marka deedkaas runtii ay iyaguna iswaafajiyaan shirka jiraadna intaas uu ku saabsanaa saxaafadana u mahadnaqaynaa aad noo